السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السود هذا هلك أدنى قد داونيسي وبليس الميديا داوشة المقال كان هديه وكل صوت هاي سبسكرايب صار لايك شير كومنتي. برنامج كان عاوي حن وجهل لدونا إله دون ونفط نقسم إن شاء الله تعالى. وفود إكله جامنا المدحين يا شكل أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي مدحينها دولة جولات كجبلان هي مدحينها دولة جولات كبتنا سعيد عبد الله الدني oo sida aan ognahayba oo qaadacay shirkii ka soo baxay oo heshiiskii lagu gaaray hanaanka doorasho ee dalka uu galay 2021 oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo ay marti gelisay halkaas oo laga soo saaray 7 qodob oo ku saleysan hanaanka doorasho ee dalka uu wajahayo labadan maamul ayaa ku gacan seeray doorashadaasi qaabka ay ku heshiiyeen madaxda sida aad ognahay waxay soo saareen laba war saxaafadeed oo laga dhansan karo in ay ka siman yihiin balacaynta ay u jeedinayaan dawladda dhexe dawladda federaalka Soomaaliya maanta si wanaagsan oo diiradaysan ayaa lagu soo dhaweeyay waxa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdi International Airport ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Finish sidoo kale wasiirro iyo xildhibaano halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay wufuudii kala hogaaminaya labadaas madaxweyne sida aan ognahay maanta waxa baraha bulshada aad looga carooday in labadaas mas'uul dartooda wadooyinka aan ognahay xaaladaha dalka iyo gaar ahaan Muqdisho ay ku sugan yihiin shacabkooda ku nool wadooyinka laga xiray maanta shacabka ayaa falcelin aad iyo aad u cambaareynaya dawladda dhexe maadaama wadooyin halbowlo ah oo dadka shacabka ay adeegsan jireen laga xiray labadaas mas'uul dartood loo xiray dadka siyaasiyiinta ayaa sidoo kale dhaleeceeyeen iyo ururada bulshada rayidka sida aan wada ognahay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay falal liddi ku ah amniga ayadoo laga jaan qaaday halkaasi ayaa waxa la xiray wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Muqdisho sida wadada Maka al-Mukarrama oo dawladda isticmaasho waxaa laga warsugayaa in ay qodobo muhiim ah ay ka soo baxaan shirkaasi ay yeelan doonaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labada madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland iyagoo la filayay in ay ka soo saaraan heshiis loo dhan yahay oo dhanka doorashooyinka ah saaxiib haddii aad ku cusub tahay channelkeena Blitz Media subscribe صار like share comment waxay noo noqonaysaa dhiirigelin si aan u soo badano muuqaallo xiiso iyo waaqic taagan oo aan kaga hadli doono insha Allah taala waad ka mahadcelinayna daawashada muuqaalkani halka aan naga daawanaysana waa Blitz Media kulanti wanaagsan oo xiiso leh ayaan idin leenahay mar kale iyo barnaamij kale oo xiiso badan. Assalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakatuh.